shirkadda Gurmad Solar Energy ayaa deeq raashin gaarsiisay deegaanada Canjiid, Ari Cadeeye, Tula Samakaab iyo Dhamansaar oo dhamaantood hoos yimaada gobolka Sool, isla maraantaasna ay ku dhaqan yihiin dadkii ay abaartu saameysay ee xooluhu ka dhamaadeen. deeqda raashinka ayaa isugu jirtay bur, baliis, sakor iyo saliid, waxaana deeqdani ka mahad celiyay dadkii halka arxiin. waxaan u mahad celinaynaa anagoo ah degmada Ari Cadeeye aan halkan uga mid celinayna Gurmad Solar Energy iyo waxa weeye hay'adda liyaad tigad marka halkan oo ay nagu soo gaarsiin hay'adda Tiko oo halkan ay nagu soo gaarsiiyeen xoogay raashina iyo Turkish iyo gurmadka waddanka Turkishka ka socota waxa weeyaan oo deeq ballaaran halkan maanta ugu keentay Canjiid, magaalada tuulada liya Canjiid. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda leyrka liya Gurmad oo iyaduna taakuleen kule iyo dhaqaalaba kule iyadana ugu mahadnaqaynaa. Tika iyo shirkadda Gurmad ee korontada Jabuuti ka mani deeq raashin ay kaashadeen ayaana waxaan soo gaarsiinay degmooyin degmada Canjiid, Ari Cadeeye, Dhamansaar. waxaana raashin ka kooban sonkor iyo bur iyo waxa la saliid iyo sonkor diyaarleedna sida ahaydna waan u gaarsiinay insha Allah ilaa maad iska leh. shirkadda hay'adda Tiko iyo shirkadda leyrka Gurmad iska kaashaday in la gaarsiiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaanu kaloo idiin sheegaynaa baahi fara badan baa taala meeshan. waa meesha ugu population-ka badan dadka, meesha deegaamada ugu population-ka badan. hay'ado hore oo badanina aanay iman iyo musaacidaad. waxaa loo keenay raashin 10 kiilo oo bariisa, 10 kiilo oo bura, sonkor ka wax, baasto ka wax, saliid ka wax, raashin wacan baa loo keenay. hay'adda Tika iyo shirkadda korontada Gurmad loogu yimi hadeer saacadan aanu taaganahay xaadira. meeshana waa tuulada la yiraahdo Dhamansaar. sidaas dhawaan ayaa ahayd markii la daafuray shirkadda Gurmad Solar Energy, iyadoona ay noqotay shirkaddii ugu qiimaha jabnayd dhinaca korontada ee laga hirgeliyo guud ahaan deegaanada Soomaalidu ay degto. Samiir Saciid, Bulsha TV, Laascaanood.